xogayaha maaliyadda xisbiga isbeddeldoonka ee wadani ayaa caawa mar uu la hadlayay TV-ga caalamiga ee Somali News ayaa sheegay inay gabi ahaanba xisbiga isbeddeldoonka ee wadani ay joojiyeen isku soo baxyadii ay taageerayaasha xisbiga wadani iskugu soo bixi jireen goobaha fagaarayaasha gobolada Somaliland isagoo sheegay inay ku bedeli doonaan isku soo baxyadaasi hawlo samafaleed oo ay gaarsiin doonaan goobaha caafimaadka iyo sidoo kale saldhigyada ay ku xidhan yihiin maxaabiistu sidoo kalena ay sameyn doonaan hawlgal nadaafadeed guud ahaanba gobolada Somaliland isagoo sheegay in shaqaalaha campaign-ka ee gobolka Sool ay u bixi doonaan hawlo wacyi-gelineed sidaad ka warqabtaan waxa socday ololihii doorashada ee axsaabta qaranku ka qayb qaadanaysay oo galay wajigoodii saddexaad barina waxay ahayd maalintii uu xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu sameyn lahaa isu soo baxyadiisa waxa marka aan jeclahay inaan halkan ku soo gudbiyo sidii ay iclaamiyeen madaxda sare ee xisbigu in dhammaan gobolada dalka isu soo baxyadii la sameyn lahaa loo bedelay qaab ka duwan kaas oo ah marka koowaad inaanu dadka oo galay oo aan mahadnaq badan halkan uga soo jeedinayo labadii maalmood ee hore xisbiga hawl adag oo aad u ballaaran oo dalka oo dhan ah hadday noqoto degmooyinka hadday noqoto tuulooyinka hadday noqoto gobolada iyo caasimadaha isu soo baxyo ballaaran iyo hawlo badan galay inaanu nasino oo dadkii aanu nasino marka koowaad marka labaadna inaanu hawlo kale oo dadka wax u taraya ku bedelo barnaamijkii xisbiga ee ahaa yacni inuu isu soo baxyada la sameeyo baan waxaan rabaa gobol ahaan gobolka Sool iyo degmooyinka hoos yimaadana annagoo fulinayna barnaamijka ama siyaasadda guud ee xisbiga in berrito ay noqon doonto maalin wajiyo kala duwan oo ka baxsan sidii hore oo ka duwan aan u dhaqmi jiray in looga dhaqmi doono gobolka oo dhan taasaan jeclaysanayna dadka gaarsiino taageerayaashadii xafiisyadii goboladii maamuladii goboladii degmooyinka ee hoos yimaanaya xisbiga inaanu gaarsiino berrito insha Allah taala inuusan jiri doonin isu soo baxyaa oo xisbigu u sameyn doona aanay jirin waxay ka shaqeyn doonaan hawlihii guud ee ahayd wacyigelinta bulshada iyo taageerayaasha xisbiga oo runtii si weyn deegaanada iyo dadka loo gaari doono oo kawaadirta xisbigu ay degmooyinka iyo gobolada kala gaari doonto haddii Ilaahay raalli ka noqdo qayb bay ka noqon doontaa hawlo kale oo samafal oo ay ka mid noqon doonto magaalada caasimadda ah ee Laascaanood oo xisbigu ka shaqeyn doono olole guud oo nadaafadeed oo aad u ballaaran oo guud laga hirgelin doono magaalada Laascaanood waxa kale iyadana la sameyn doona hawlo kala samafal oo goobaha nugulka ah ee cusbitaalka iyo xabsiga iyo cusbitaalka dhimirka iyo la gaarsiin doono hawlo samafal ah marka hawlo guud oo sidaas ah oo u kala baxa kuwa xisbiga ah oo la gaari doono goob walba oo xisbigu u taageerayaal ku leeyahay oo wacyigelin laga sameyn doono iyo kuwa samafal ah ama adeega guud ee bulshada ah oo sida nadaafadu ay ka mid tahay in berrito insha Allah taala la qaban doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo taa si guud baan u ogeysiinaya bulshada anigoo runtii sidaan hormariyay aad ugu mahadnaqaya in ay cududooda muujiyeen taageerayaasha xisbiga wadani oo wixii ay sameeyeen ee ka sameeyeen gobolada dalka oo dhan labadii maalmood ee ka horeeyay maalinta tan ay tahay wax aad loogu mahadnaqo looguna abaalgudo in culayskii rafaadkii badnaa iyo hawshii badnayda ay mareen ay ku muujiyeen xisbiga inaanu anana turaal u samayno oo ay nastaan magaalooyinka laftigooda oo annagoo dareensan xisbiga cududiisa inuu muujiyo haddana inay culays ku yihiin raaliyada iyo soo baxyada isdaba joogga ah ee jiray iyaga laftigoodana magaalooyinkana inaanu nasino mid saddexaadna waaba jirtaayo dee wax cid hadda aanu u dhoolla tusanaaba kolle annagu gobol ahaan kama muuqan gobolkoo taa laftigeeda waxaanu isleenahay culays uu bulshadaabay hadda ku ahayda cid kaloo loo dhoolla tustaa ma jirinoo qoladii kale waa niiqdaysoo isma lihin haddeerto cid idinka soo horjeedo oo muuqato oo meesha ka muuqatay baa jirta iyadana isma lihin dhanka kale xogayaha maaliyadda xisbiga isbeddeldoonka ee wadani ayaa eedamo u soo jeediyay xisbiga kulmiye isagoo sheegay inay degmada Egoor ee gobolka Sool ay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo ciidanka bilaysku ay ka dajiyeen calanka xisbiga wadani isla markaasina ay ku tilmaameen amar ka soo baxay komishanka doorashooyinka Somaliland
isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladiisa ka mid ah sida tan. waxaan rabaa halka kan inaan ka caddeeyo in xisbiga muxaafidka ee talada haya wuxuu si joogto ah maalin walba ugu tumanayaa shuruucda dalka u taalla. wuxuu maalin walba ku jiraa oo xisbigu leeyahay olole iyo inuu gobolada iyo degmooyinka tago. waxaa caaway soo gaadhaysaa in xisbigaasi isagoo adeegsanaya ciidamada amniga calamadii xisbiga wadani uu dejiyey degmada Yagoori isagoo ku andacoonaya in uu yahay amar ka soo baxay komishanka doorashooyinka la dejin doono calamadoo dhan, taas oo ah markii uu ku fashilmay sidii aan marar badan sheegnay inuu qulubta dadka kasbado inuu doonayo iyagii cid u soo baxda aanay haynin meel ay calan ka taagtaan aanay haynin in ay la dagaalamaan ciddii ka soo horjeeday iyagoo isticmaalayo si khaldan oo sharciga ka baxsan u isticmaalaya awooddii dowladnimo. arrinta iyada uga digaynaa. waxaanu leenahay arrinta iyada haddaad ka waantoobi weydaan cawaaqib xumaa ka imaanaysa. wax alla wixii ay yeelatana idinkaa qaadi doona. aad iyo aad baad u mahadsantiin. maxamuud aadan askar maxamuud guray TV-ga caalamiga ee Somali News laascanood.